Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharada taxanaha Class Academic and Technology. Waxaan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. mar kale kulan wanaagsan ku soo dhawaada lesson-keennii sagaalaad oo aan kaga hadlayno software-ka loo yaqaano Adobe Premiere Pro. lesson-keena sagaalaad ee Adobe Premiere Pro waxaan ku qaadan doonaa sida laba muuqaal oo midba meel laga keenay aan hal xabo uga dhigi lahayn. Haddaba shaashadda hadda sida kaaga muuqata laba qof oo iska soo horjeeda ayaa ku muuqanaysa. Labadan qof sida qaabkan ay yihiin oo kale ayaan ka dhigaynaa, haddana background-ka ay isticmaalayaan uu kala duwan yahay. Marka aan guda galno casharkeena. Okay, marka koowaad waxaan soo qaadanaynaa background-kii aan u yeeli lahayn oo aan ka soo marin lahayn video-gaasi aan dhabarkooda ku muujin lahayn ayaan soo qaadanay. Kani waa background-kii kaliya oo halkan naga muuqda. Okay, background-ka waa kala bixinaynaa. Marka waxaan kala bixinaynaa background-ka dooranay halkee laga helayaa waa inaa haysatid qaybta loo yaqaana effect control. Marka motion-ka la furo, marka motion-ka furtid waa inaa shaashadda ku kala bixisaa. Scale-ka qabatid, shaashadda ku kala bixisid. Marka background-kii ka dambeeyay aan soo qaadanay, waxaan soo qaadanaynaa labada muuqaal oo halkan ka muuqata color-kooduna uu kala duwan yahay ama gidaarka ka shaqeeya uu kala duwan yahay. Waxaan soo qaadanay muuqaalkan muuqaalkani wuxuu u samaysan yahay sidaan oo qofka dhabarkiisu uu ku aadan yahay green screen. Marka codkiisa rabaa meesha ka saaro, codka uma baahni. Qufulka iska xir, kadibna waxa taraa codka dooro, iskana tir, kadibna qufulka ka fur. Marka saad tiraahdid oo doorto sawirkii muuqaalka waa kan ayaan ku dhufanayaa motion-kiisa. motion markaan ku dhufdo scale-ka ayaan yareynayaa si qofka shaashadda u la ekaado. waa yareeyay, kadibna waxaan dhinaca u kaxeeyay, kadibna hoos baan dhigay. hoos markaan dhigay xagga ayaan u kaxeeyay, shaashaddan ku sinay oo waxaan ka dhigay inta waa kasii yareyn karaa. Okay, waxaan soo qaatay sawirkan kaleeto, muuqaalkan kaleeto ayaan soo qaatay, asna waa ka daba kor ayaan ka saaray. kor markaan ka saaray waxaan doonayaa codkiisa inaan markaas reebo. qufulka iska xir, ku dhufo kan. markaan kan ku dhufdo waxaan sameynayaa markaan kan ku dhufday codkiisa iska tuur, kadibna looga ka bixi. Okay, markaa waxaa dhacday geesaha uu ka madow yahay, madowgaas geesaha rabnaa ka reebno. geesaha sida uga baabi'ino waxaan leenahay waa dooranaynaa. waxaan dooranaynaa qaybta loo yaqaano capacity ayaan dooranay, kadibna waxaan dooranay qaybtan rectangle-kaas ayaan dooranay. rectangle markaan dooranay qofkii dhammaa waa la qashay, rectangle-ka qashay. rectangle-ka marka waa inaan ka dhignaa qofka dhan inaan muujino, inaan sawirka gabadha haweentaas muujino ayaan doonaynaa. oo yahay okay, waa sawirkeeda wuu noo muuqday. marka sawir oo video ah weeyaan. dhinaca waxay usoo bixi, dhinaca gacnaha ay ku taagi lahayd weeyaan. oo marka halkaa joogno waxaan leenahay xaggaan u dhiganaa waxaa yareynaynaa. markaan yareynay ayaan fogeynaynaa. markaan xoogaa fogeynay hoos baan u dhigaynaa. derbiga hadhow hoostiisa u banaanaan. Okay, sidaas maan yeelnay, halkaasay joogtaa. waxaan doonaynaa inaan color-ka ka bedelno. color-kaan inaan bedelno, kana bedelno aan doonaynaa. waxaan tagaynaa qaybta la yiraahdo effect-ga ayaan tagaynaa. waxaan qoraynaa ULT oo aan kala jeedno alter key. alter key halkaan noogu soo baxday. dulkeen. marka dulkeenay waxaa nooga soo baxday qaybtaan hoos u jiid. marka waxaa nooga soo baxday halkaan key color-kaas qalinka ayaan qaadanaynaa. qalinka ayaan ku dhufanaynaa green-ka ka shaqeeyo.
okay marka waa ka bixinay shishadeedii waxa ka dhignay meel banaan bay taagan tahay marka waa ka soo ka marinay kana ka soo ka marinay marka waxa dhacday inay meeshan soo ka taagan tahay iyadii qaybta kale taayas muuqaalkan ayaan dooranay muuqaalkan waa kan dooranay maxaan niri sidoo kale waxaan soo qaadanay alter keygi oo noo doornaa waa ku dhex sii deynay hoos ba kan u soo kaxaynay kadibna qalinka qaadanay waa ku dhufanay okay marka labadoodu waxay noqdeen laba muuqaal oo meel caadi soo wada taagan aan hadaba shidno si ay muuqaalku u muuqdo okay qof oo war isdhaafsanaysa ayay u muuqdaan ayagu communication dhexdooda sameynaya sida ayaa laba muuqaal oo kala duwan waxa uga dhigi kadhaa inaad isku keentid colorkan ka shisheeyay nooca harta waa ka dhigi kadhaa jid dhexis waa ka dhigi kadhaa dad oo jid dhexis taagan waa ka dhigi kadhaa dad baabuur ka shisheeyay waa ka dhigi kadhaa aduu colorka ka shisheeyo aad bedeshid ama muuqaal caadi ah soconaya aad ka dhigtid waa wadaad ka dhigtid markasta waa qaybtan hoos noo taala labadaana waa labadii muuqaal ee kala duwanaa marka colorka ka saartidna waxay noqdeen laba meel caadi taagan oo isku color joogta oo hal video u eg way noqdeen okay marka waa save garanaynaa wax ku dhufanayna file marka ku dhufano waxaan leenahay waxaan ka dooranaynaa export aan ka dooranaynaa kadibna waxaan leenahay media median ku dhufanay waxaan sii dooranaynaa waa sugaynaa ilaa inta noo soo baxayso labadii muuqaal waa kuwan muuqaalkeeni oo hal muuqaal u taagan waa kan waxaan leenahay halkan waxaan ka bedelanay versionkaana bedelaynaa waxaan ka dhiganaa qayb oo lana daawan karo fududna waxaan ka dhiganay high definition 720 kaasaan dooranay kadibna waxaan halkaa markaan joogno waxaan leenahay halkaas ayaan gujinaynaa meeshaan dhigan lahayn baan dooranaynaa waxaan leenahay magacaan ku qoranaynaa waa hgh baan niri waxaan dhiganaynaa desktopka noo dhig desktopka haddaan joognaa kadibna save dheh halkaana waxaad tidhaahdaa export intaa uu socdo ayaad sugaysaa inta daqiiqo ay kugu qaadan karto casharkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waa ahaa casharkii 9aad ee Adobe Premiere Pro haddii aad ku cusub tahay channelka Ikhlas Academy and Technology fadlan subscribe lana wadaag asxaabta kale oo doonaysa inay bartaan film editor-ka